musharaxiinta kale Cabdikariim Meecaad Xuseen iyo Khadar Cali Xasan iyo Mubarak Muuse Ismaaciil oo kamid ah 12 xubnood ee ku soo baxay doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa ka dareen celiyay isla markaana u mahad celiyay shacbi weynaha gobolka iyo taageerayaashooda. Salaamina bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo waxa weeye anigiyo labada xildhibaan dhalinyarada ah aan ugu matali doono hadii la heerado xildhibaanada 12 bay ahayn gobolka dhan laakiin anagu saddexdeedana is helay isku meel la ahayn isku team la ahayn insha Allah waa habaleynayna dadweynaha soo doortay waxaan noqonaynaa kuwa u shaqeeya iyaga kana mataladanahooda rasmiga ah iyo ayahooda waxaana ugu mahad celinaa waqtigii badnaa ee ay galiyeen in anagana soo saaraan waxa weeye waa aad iyo aad ugu mahadsan yihiin kun jeer baan leenahay waa mahadsantihiin anana abaalkiina waa gudana insha Allah wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan xagga waxaan ka salaamayaa taageerayaasha bulshada reer Sanaag gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo iyo gobolka Sanaag oo dhan dadkii runtii soo doortay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa jazaakumullahu khayr runtii waa arrin aad iyo aad farxad leh maanta inaan xagga ku guuleysanay dhammaanteen inaad xildhibaanadiina soo saartaan annaguna waa idin mahad celinaynaa runtii gaar ahaan bulshadii xoog noogu shaqeysay dumarkii dhalinyaradii carruurtii odayaashii iyo waayeelkii runtii soo doortay ee isxilqaamay inay soo saaraan aad baad mahadsantiin insha Allah taala waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo in aan waajibkayga gudano sidii markii hore baan ugu ballan qaadnay inaan gobolka Sanaag matali doono xuquuqdiisa hadii la yiraahdo inaan xuquuqdiisa aan ku dagaalano wixii gobolka ka dhinaa inaan dawladda gaarsiino baarlamaanka kaga hadalno hadii la yiraahdo marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin waxaan aad iyo aad baan u faraxsanahay saaka waxaan ku faraxsanahay dadweynaha reer Sanaag oo cod weydiisanay aan cod weydiistay oo codkii siiyay iga aqbalay codkii aan weydiistay codsigii reer Sanaagow waad mahadsantihiin waad ka jawaabteen codsigii aan idin weydiistay ahaa inaad doorataan way doorateen falillahi alxamd insha Allah taala idinkaan idin matalayaa waxaan ku faraxsanahay tuulo walba deegaan walba oo gobolka Sanaag inaan cod ka helay inaan baran cod ka helay dhahar cod ka helay ceelaf weyn cod ka helay garada ka helay Ceeri Gaabo ka helay meel aan sanduuqan cod iga soo bixinaano jirinin taa macnaheedu waxa weeye reer Sanaagow dhammaantiin waan idin matalaa waan idin wada matalaa xildhibaanada yada cusub dhaqan cusub baan jideyn doonaa biidnillaahi alkariim oo aan uga baran dhaqankii Sanaagtii hore ah shakhsi inay danahooda ama xaafad raadiyaan laakiin waxaan rajaynaynaa anagoo gacmaha isku duuban annagaan qabiil kale lahayn annagaan cid kale lahayn inaanu danaha Sanaag ka wada shaqeyno way isku wada duruuf baynu qabnaa isku baahiyaynu nahay dhammaanteen isku baahi baynu nahay cirif maadaama isku baahi nahay sabab aynu u kala ablayno sabab aan oo kala saartaan ma jirto waxaan idin rajaynayaa waxaan idin soo jeedinayaa reer Sanaagow inaydan xildhibaanada Sanaag u abtirinin inaydan oran jilib hebel iyo jilib hebel waa xildhibaano Sanaag bay ku abtirsadaan xildhibaanada laftoodu waa inaydan aqbalinin marka hadii la isku dayo in la idin ableeyo la idin kala abtiriyo taas ma aqbalayno xildhibaano Sanaag baynu nahay duruufo isku mid aynu ka wada shaqeynaynaa taasina wada halgamaynaa taas ayaa ah cod kale nagu siiyay saaxiibadeedii aad ka u dadaalay ee aan fursad u helin inay ka mid noqdaan golahana waxaan leeyahay saaxiibayaal idina waa dadaasheen aad baa u dadaasheen tacab badan baa geliseen tacab aad u farbad baa geliseen laakiin nasiibka sidaa noqday idinka laftiinu waa inaad barbar istaagtaan waa inaad si niyad sameeyaan oo la shaqeysaan aad iyo aad baan reer Sanaag u salaamayaa waxaan leeyahay reer Sanaagow ballanqaad waan idin dhamaynay fagaarayaasha markaan ka hadlaynay qodobada aanu ka shaqeyn doono waxaanu qaban doono qodobada sharciyadeed aan doonayno inaanu xayndaabka ka jibino gobolku saan idin sheegnay waa gobol xayiraad dadban baa saaran cunaqabatayn indirect cunaqabatayna baa saaran oo dadban sida uga taasaan doonayno ka halganno hamigii aan idin la qaadno nagu jiraa waxaan is leenahay wada shaqeyn fiican